شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواده ولا ليلة جنان كسان كحكتا ما أنت ولا ليلة وحنا كهذا الدنيا صحابي قوينا إلى يرى الله كنقضي بلال بن الرواحة الحبشي. بلال بن الرواحة الحبشي وهو يدينا هيد حمامة وكل شيء مجالة مكة بلوجي أدون مدي كورسو صار التانكي النبي صلوات الله والسلام عليه يضل قصة قبسة قبيل كرير بن جناح وحا أدون هان دي بقصة يبسد أمية بن خلف سوء النقضاء أدون اللي بلال بن الرواحة مركي أرمي النبي صلوات الله والسلام عليه أمية بن خلف وحمر سي عذاب آدو درن isagoo jirdeli jiray jeedana la dhici jiray cuntana aan sii jirin ba intuu xari ku xiro ayuu dumarka iyo carruurta amri jiray magaalada dhexdeeda inay jiidaan kadib markii uu umay u taag waayay bilaalna uu ku adkaystay inaanu ka baxay diinta islaamka isagoo ugu bedelay ciqaabkii inuu feedhaha dhagax weyn ka saaray caloosha xilliyo kuleelku aad u daran yahay oo bilaadan iska daahaadka samada duulaya oo gabaad ka raadsaday ciqaabkaas uu ku jiray muddo aad u dheer markastoo ciqaabo ama uu jirdilo waxa qura afkiisa ka soo baxay waxay ahayd axad isagoo beeniyay ilaahyadoodii faraha badnaa qalbigiisa iyo maskaxdiisana ay ku jirtay kalaamkii ilaahay ahaa wala rabbika fasbir bilaal naftiisa waxba kama dhibeen xaaladda uu ku sugnaa qalbigiisana waxa ku jirtay kelmadda rabbi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. kadib Abu Bakr Sadiq wuxuu maqlay arrinkii Bilaal wuxuu u tagay Umayya bin Khalaf. Abu Bakr wuxuu ku yiri saaxiibkiin wuu dhimanayaa intaad cadaabi lahaydeen aniga iga iibiya. Umayya bin Khalaf wuxuu ugu jawaabay 5 kiilo oo dahab ah haddaad naga siisanayso waan ka iibinaynaa. Abu Bakr saasuu ku iibsaday Bilaal kadibna uu ku xoreeyay labadoodaba ilaahay raalliha ka noqday. Bilaal bin Rawaha wuxuu ahaa mid nabiga agtiisa aad ugu weyn nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo asxaabta dhexdeedaba. Waxa uu ahaa kii ugu horreeyay eedaama asxaabta nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. Nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu yiri sayidka maadimiintu waa Bilaal bin Rawaha isagoo ahaa nin cod fiican oo cod dheer oo aadimi jiray ilaa intii Nabi Maxamed noola salawaatullaahi wasalaamu calayh. nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu u markhaati kacay Bilaal inuu yahay ahlu janno. waxa uu ka mid ahaa asxaabtii ugu horreysay ee Alle dartii u dagaalama. sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay dhammaan duulaanadii uu nabigu qaaday salawaatullaahi wasalaamu calayh. sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay dagaalkii Badr isagoo gacan weyn ka geystay dilkii Umayya bin Khalaf. waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay islaamnimadooda muujista iyagoo kala ah nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh, Abu Bakr Sadiq, Umar, hooyadii Sumayya, Suhayb, Bilaal iyo Baqdaad iyo Khadiija xaaskii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo Cali bin Abi Talib. dhimashadii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh kadib Bilaal wuxuu u tagay Abu Bakr Sadiq isagoo ka dalbanaya inuu ka qayb qaato dagaalada ay muslimiintu qaadaan. sidaa darteed Abu Bakr Sadiq waa u diiday da'da Bilaal oo aad u weynay darteed. talada muslimiinta markii uu qabtay Umar bin Khattab ayaa Bilaal u yimid isagoo ka dalbanaya inuu raaco dagaalada ay muslimiintu qaadayaan. kadib Umar waa uu ogolaaday. Bilaal ilaahay raalliha ka noqday wuxuu ku dhintay Shaam khaasatan Dimashq sanadku markuu ahaa 20kii hijriyada. dadka taariikhda soo wariya waxay sheegaan Bilaal inuu dhintay daacuunkaasoo la oran jiray amwaas halka ay taariikhyahanno kale qorayaan inuu ku geeriyooday Xalab. laakiin badanku waxay isku raacsan yihiin Dimashq isagoo loo dhisay maqaamkaasoo ku yaala tuulo loo yaqaano Bilaal. waxa uu guursaday Bilaal bin Rawaha Hala bintu Cawf oo ah walaasha Cabdiraxmaan bin Cawf. labadoodu waxay geeriyoodeen iyagoon ilaahay waxa walaalo kala siin. ilaahay fi aakhiraba raalliha ka noqday.